السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان هلكن ku qabanaynaa gabayadii silsiladii dulmi ee uu soo furay Abwaan Aw Faarax Gure taasoo ku wajahneyd kufsiga iyo taadiga loo geysanaya haweenka Soomaaliyeed. Silsilada qaybteedii hore waxay ku bilaabantay gabaygan wuxuu yiri Aw Faarax bismillaahir rahmaanir rahiim ninkii diin ku dhalada yaqaan dumar wanaagoodii daliilkii rasuulka iyo sharcigu darajo weeyaane duca hooyadeena ka roon dunida maaliyal wadamal harweyn iyo jannada digeladeedii dulli iyo nin liitaa u hore duuti iyo layne da kastaba ha joogtay haween daran iyo wawcab caawna dareen fool xun bay dibadda keeneen dirsin lama ilaa waana bay soo dalqamiyeen darayaan bislaan bay cuneen dudubiye weyntii u bixi daboolna afkay dubuq ka siiyeen dayrta geedihii soo baxay godin u daabteen aniguna dubkaan uga nixiyo diirka oogada tafaduba hilbaha kiisa dagan way dalacataay dugaaga wixii loo dayaco diirta oo laqay iyagoo dulaha meeraya ciidan loo dirin booliska dadaal ugu jiriye danabka qaarkiisi nin kasto dunuub inaga galay dawladda qabane dawadoodu waa maalintii jeelka loo diro hablahana daryeel gooniya loo diyaafadine dabayl caafimaad ee rabbigu deeqdi ha u furo ayuu yiri Aw Faarax Gure waxa soo galay nin la yiraahdo Saciid Maxamuud Jirde wuxuu yiri dabuub gabay haddii aan tirsho deelka kaygaasho dibnihiyo haddii aan ka rabo ereyo deelqaaf ah oo aan duruufaha waqtiga dacal ka falleeyo dumarkii caruuraha la dilay dood yar ka yiraahdo oo aan dul maro xaajada laga diqoon waayay duni weeye maatada dayacan la iska dooxda duni weeye ceebtiyo kufsiga loo daliishaday duni weeye aan kii falka galay la doonaynay duni weeye aan kii wax dhimay dacad loo noqon duni weeye laaluushka iyo riba la doontaaye duni weeye aan hooyadii laga daryeelaynay duni weeye inantii yaray doobku weeraray waa duni sagiir iyo kabiir lagu dulmaayay waa duni ninkii jiray 50 belada baashaaye 60 kii dulmaray waa dhul xuma durduurta waa duni samaan laga tagiyo kala dambeyntii duni weeye kii sharaf lahaa laga dulguuraaye duni weeye aan loo dhig jibin culimada diineed waxba gabaygu ila durkiina waan dejinayay alle waxaan duraansaday inuu xaq dilaacshaay dulmiilahana uu soo qabtaa duqiyo waayeel dambiga wixii galay xabsiga lagu dareershay dildilaad allow lagu xukumo daayeen baa tahay cadaabtana dabkeediyo arkaan dabaqi naareed halka markii soo dhigay Saciid Maxamuud Jirde waxa soo galay nin la yiraahdo Saleebaan Dirir Maxamuudna wuxuu yiri indhoweyd badeelaydii gabay waanigan deeyni tibnahayga waataan ka jiray darajadiisii ma doono goortaan rabaan daaqad furaya balandayo dibnuhu waxay barteen dihashadiisii marka hore salaan diiran baan idin duraabsiine qof waliba ducdu jooga baan daacad ugu geyn dacalada ku horsada marbay daawo noqotay adduunyadan cirka duulaysa wada dawaafaysa adduunyadan xaqeedii la diday dabaqadan joogno dulmigiyo dhibaatada dadkii darajo weyn mooday aniguna dareenkayga waan idin dareensiine sidii dirirka oo horay baan idin dabalsin indhoweey dawaaf baan ahaadaan kastay tahay dibadaha ma aadina dalkan soo dulmarayay waxa anigu aan daalacdan idin dareensin duxo iyo dureemiyo ilaah doogsin buu dhigay warcaanahu intay daadisay darartay maandeeqe doobiga intii lagu lisaa laga durduurtaa duqaydiyo dadkii diintu waa wada duceeyeen deeqdii ilaah iyo dadkii dirajo weyn gaariye waxsi anigu aan diiday bandiirka ka cadayn dumarkii caruuraha hadii dayra laga yeelo hadii daabcad lagu jiidayo lagu damaashaado dullinimo inay daalac tahay waa dareen jira inta ay dambeed iyo horaad hooyo nagu deysay waa waxaan dadkuba koobi karin daayin mahadiisi inta diif cidlada sixatee dadabta loo xeeray duhurkii habeenkaba dugsiga lagu daryeelayo inta soo daryeelka kuwii daayin naga siiyay waa waxaan dadkuba koobi karin dunida jooga haddii aan la darajeynin oo lagu damaashaado dullinimo inay daalac tahay waa dareen jiray mar haddii dariiqii Alle diinta laga leexday daldalooladoo idil hadaan daawo lagu buuxin dalumaha haddii aan la didin laguna sii daato dambarkeedu waa jahannamiyo doobkii naareed diifiyo waxa dunida yaal dooga aan hadhine diintii ilaah iyo sharciga daacadda ogaada oo daaya dumarkeenu waa deeqa iyo luule ayuu yiri Saleebaan Dirir Maxamuud waxa soo galay Cabdilaahi Cali Ibraahin Geelle wuxuu yiri indhoweyd badeelaydii gabay soomada ha furine
daboolkan ka rogay ceelashii ii dihnaan jiray waxaan dunida gaarsiinayaa ceeb la daa'imay dulqaadkii dhammaa iyo xarago dookhi nololeede waagii dilaacaba war baa la isu dirayaaye dakhriya waxay sheegayaan dil iyo laayaan duudsiga haweenkana hadeer daacad loo noqoy dulmi kama baxaan iyo xumaan lagu dabaalaaye daranyada waxaa loo gashaa dunida dhaafsi dabin baa u yaalo xarkuhu waa istaba joogi daliigaha ramaaska bixiya doogi lagu leefiye u bixi dilaacaba dhaqsaa duleenu gaadha waa taa la dabar goynaya dumarka maandhowe waxaa la iska dooxdaa sidii duunyo baadiyae dariiqyada dhalanka iyo wata duurka loo galay duduubna waa lagu laqaadaray sidiisiiye duca waalidii iyo hooyadeen loo dardaar weriye waa taa daleeshaa la waray doorarkii kacay tani waa u dambaysay horaa daayif loo dhigay darxumada la soo sheegayaan laga dawoobayne dacwadeyda eebba wadaan kuu duraansaday inkastoo daroogiyo kufrigu dalabka noo keeno inkastoo dagaal nala ku wado nala ku daaduushay doqon iyo nin litaaba waa dabagelayaan diinteennii aw faaraxow laga dawaareeye diiwaanadeennii horiyo dhaqanka duursoonye maxaad gabay ka soo daabacda daawashaa timiye amba doogta waa kula qabaa diifta waayahay shalay iyo doraad baa qalbigu ila dilaacaay sidii aan dayoobaa wadnuhu ii dig leeyahay dembiyada ilaah baa xukuma labada daaroode dunuubta raggii galay ayaan cidina daynayna dildalaad ayay mudan yihiin daayin abidkood halkaa markuu soo dhigay geella waxaa soo gashay abwaanad kobro xaaji xasanna waxay tiri daayar soo koraysiya caruur daadaha baranaysa dusha ubadkii lagu qaadayaa daalin weeraraye dhallaankii dayoobiya haween duurka lala aad waxaa nacabku duxduuxaya deeqa iyo luule waxaa dakhar ku dhacay waalidkii ciilku daashaday haddii ay da'deed weyn tahay oo daal la socon weyday ama xaamil diifaysan baan cidina daynayne waxaan dunida hore loogu arag baa diiwaan galay haddii aan dembiilaha la qaban ama la soo duugin dildalaad haddii aan la marin daalinkiiyo tuuga oo aan ilaahay dartiis dumarka loo heelin raggu inuu dhammaan dabar go'aan dood ka furaya halkaas ayay joogtaa silsiladii dulmi qaybteedii hore qaybta labaad